بسم الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودرس كيني لبعض إعجاز التشريعي إعجاز كجرة شريعة إسلامك درس كيسي لبعض ويه كاسو مانتا aynu kaga hadli doono mucjisooyinka dhaxalka shareecada islaamka ku jira khaasatan aayadan uu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey ee ah aayadaha xukuma dhaxalka islaamka toodii ugu horeysayna ay tahay acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim lilrijaali nasiibun mima taraka alwaalidaani waalaqrabuun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر نصيبا مفروضا إلهي وحي آيادا كشاقي سبحانه وتعالى إن ورقوا النصيب كله دحلك أي كتغان والد كود إيا قرابدود سيدو كلنا إن أي دمركو نصيب كله دحلك أي كتغان والد كود إيا قرابدود مما كثر أو قل هيرادو دحلكاس أي هليان هسي بدناده نصيبا مفروضا ونصيب وإلهي كفر ديالي وكواجبيي dadka muslimiinta ah siduu ilaahay ugu waajibiyey inay u raacaan oo aynu sharxi doono insha Allah taala dariskana maka ku xiga waxaynu ognahay in dhaqan wal diin wal iyo system wal oo ama dimuqraadi ha ahaado ama shuuciyad ha ahaado wuxuu doonayo ha ahaade dhaqan kasta iyo diin kasta inay leeyihiin dhaxal ay isdhaxlaan si aynu u fahamno quruxda uu leeyahay shareecada islaamka iyo dhaxalka islaamku bal aan eegno diimaha kale iyo dhaqamada kale dhaxalka halkay ka joogaan diinta masiixiyada waxaynu ognahay in ay u siisay qofka xorriyad taam ah inuu dhaxalkii laga dhaxli lahaa isagu ku takrifalo rag iyo dumarba oo ciday doonaan ay siiyaan dadkii qofkaa la dhaxli lahaa dhiig la wadaagay kay doonaan ay u diidaan qaarkood ay siiyaan waxoo dhanba hadday doonaan ku qoraan eygooda ama bisadooda diinta yuhuudda haddaynu eegno dumarku iyo ciyaalku wax allaala waxay dhaxalka ku leeyihiin ma jirto waxa keliya ee dhaxalka iska leh wixii rag ah ee qaangaadha kuwa ragga ah ee qaangaadhayna haddii uu ku jiro mid aan guursan ama laba aan guursan dhaxalkii qofka ninka aan guursanin laban laab buu helayaa intay dhaxalka ka helayaan ragga kale waynu ognahay diimaha kale haddaad u fiirsato ee badan dhaqamada badan sistamada badan inaan dumarku iyo ciyaalku waxba ku lahayn sidoo kale islaamku jaahiliyadii nabigeenna ka hor calayhi salaatu wasalaam dumarka iyo ciyaalku waxba kumay lahayn dhaxalka marka maalin malmaha ka mid ah sida laga soo wariyey cabdullaahi bnu cabbaas radiallahu canhuma ayaa waxaa dhintay saxaabiga ansaariga ah ee la yidhaahdo aws bin thaabit radiallahu canhu wuxuu ka tegayna laba hablood oo qaangaadha iyo inan yar oo aan weli qaangaadhin adeeradood laba nin oo adeeradood ka mida ayaa yimid oo wax allaala wuxuu aws ka tegey ayay qaateen gabadhiisii ummu kuja radiallahu canha ayaa ku tidhi labadii adeer war hablaha waxay ku guursadaan uga taga ama u guuriya tana way diideen rasuulkay u tagtay calayhi salaatu wasalaam arrintiina way u sheegtay wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi maa adrii maa aquul waxaan kuu sheego garan maayo markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey aayaddaas ah lilrijaali nasiibun mima taraka alwaalidaani waalaqrabuun aayaddaa aynu soo marnay ee sheegaysa in rag iyo dumarba dhaxalkii
waalidka ama qaraabadu ay ka tagaan in ay ku leeyihiin xaq kaasoo ah nasiiban mafruuda ha yaraado hase badnaadee nasiib uu ilaahay farad yeelay oo uu u waajibiyey qofkaas ayaa aayaddaasu inoo sheegaysaa. marka waxaa halkan inooga cad sidaynu aayadaha dambena ku arki doono iyo tafaasiisha dheeraadka ah ee maxay ahayd dhaxalka, waxaa halkaa ku cad in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu dhaxalka qaybiyey, qof walbana uu siiyey nasiiban mafruuda, nasiib ama sheer uu ilaahay farad yeelay oo uu qofkaa u gooyey. umuu dhaafin ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba wuxuu siinayo ra'yi nebi iyo ra'yi sheekh iyo ra'yi qof tol ah iyo mid qaraabo ah midna, balse dhaxalka ilaah baa qaybiyey. mucjisooyinka ku jirana sidaynu arki doonno waxaa ka mid ah in bani aadamka wax allaala wixii dhiig la wadaaga qofkii dhaxal ka taga uu ilaahay sidaa uu yidhi nasiiban mafruuda siiyey sheer ama nasiib ay qaataan. ha jiraan qaar isxujubaya oo iska maanicaya ma garanaysaa inuu qof haddii uu isagu joogo aan kii kala qaadan karin, oo iyaduna ah wax cadaalad ku sugaysan oo run ahaantii ka yaabisay dadka dersa looga yacnii sharciga khubarada sharciga derista markay ogaadeen islaamku inuu qof walba oo dhiig la wadaaga qofkii dhintay ee dhaxal ka taga inuu sheer leeyahay. waa waxay la yaabeen, waayo systemska adduunyada kale ma koobi karaan mana tifaftiri karaan in ay wax allaala wixii qof dhiig la wadaaga dhaxalka wax ka siiyaan. markay culimmada sharciga dejisa ee khubarada sharciyada dejiya ogaadeen shareecada islaamku siday u koobtay ee aanay qofna uga tegin, mid yar iyo mid weyn, xataa mid uurka ku jira oo aan weli dhalanin, waxay ku noqotay wax la yaab leh. sharciga aynu arkayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo koobay 7 aayadood oo qur'aanka ka mid ah, 7 keliya, iyo dhowr xadiis oo nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey. bal intaynaan qotag hoos u gelin in shaa allah aan aragno horta ahmiyadda ay leeyahay dhaxalku iyo islaamka meeshuu ka taagan yahay. cabdullaahi bnu mascuud radia allaahu canhu waxaa laga soo wariyey inuu nebigu sala allahu calayhi wasalama yidhi tacallamu alcilma wacallimuuhu nnaas, tacallamu alfaraa'ida wacallimuuhu nnaas, tacallimu alqur'aana wacallimuuhu nnaas, fa innii maqbuudun waalcilmu sayuqbad wasatakuunu fitan xataa yakhtalifa ithnaani fii fariidatin laa yajidaani axadan yafsilu baynahum. rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa saxiixa ah wuxuu yidhi isagoo inagu boorinaya ahmiyadda uu leeyahay cilmiga faraa'idka ama cilmiga dhaxalku, wuxuu yidhi barta cilmiga, macnii cilmi oo dhan kii naafic ah weeye, cilmigii naafic ah oo dhan barta, dadkana bara, khaasatan cilmiga qur'aanka barta oo dadka bara, cilmiga faraa'idka barka macnii cilmiga dhaxalka oo dadka bara buu yidhi, waayo ini imru'un maqbuud, waxaan ahay qof tegaya baan ahay, waalcilmu sayuqbad, cilmiguna wuu tegi doonaa, wasatakuunu fitan, markuu cilmigaasu tago, cilmigaa micnihii khaasatan waa cilmu lfaraa'id weeye, markuu tago siduu xadiisku inoo sharxayo waa cilmu lfaraa'id kaa uu leeyahay wuu tegaya khaasatan ee nebigu inagu boorinayo calayhi salaatu wassalaam. markuu cilmigaa faraa'idku tago fitan baa dhici doona, waxaa dhici doonta inay 2 qof isku qabtaan dhaxalkii ay qaadanayeen, dabeetana ay waayaan cid u kala furta, dabeetana fidno halkaa ka bilaabanto. waynu arkaynaayoo maanta dadka qaar fidnada saa dhex taalla, dhaxalkiioo dub loo dhigay oo la yidhi markii hore aan wada haysanno, aabbaheen hooyadeen waxay ka tageen iyaynaan qaybinin, reerku sidiisii ha isku ahaado, inkastuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala qaybiya markuu qofku dhinto, balse dadka ay dub u dhigeen
markii dambena hunguri wada galay dhulkii odagu ka dhintay ama islaantu uu qaaliyoobay dabeetana walaalihii isku naceen oo kuwii waalidka ahaa abtigii iyo eedadii iyo habaryartii iyo adeerkii iyo carruurtii isku naceen ayaynu maanta joognaa waa siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxamdu lilaah culimo badan baa ina dhex joogta oo cilmulfaraa'idka uu nebigu inagu booriyey inaynu baranno maasha allah inoo haya maanta oo haddaad u tagto inoo kala goynaya balse haddaynaan baranin oo dhallinyartu aanay baranin oo ubadka soo baxaya iyo generationka dambe aanu baranin sidaa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaa laga yaabaa inay igu dhacdo sidoo kale nebigu wuxuu yidhi calayhi afdal asalaatu wasalaam abu hurayra khaasatan wuxuu yidhi yaa abaa hurayra تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى إنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي أبا هريرة علمك فرائضك برت أوضتك برابولي وايو نصف العلم علمك قيب وين أو كمد أهوي وهو ينسى وأنا علم الإلاب دونوي وهو أول شيء ينزع عن أمتي وأنا شيء أوه الرأي علمك أوه الرأي يكتر ترمي دونه ومضي دبوي للنبي عليه الصلاة والسلام سيداس درتد علماء الصحابة والتابعين وتابع التابعين هي علماء دي كدن بيسي أردمي أهمية بيسيين سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس زيد يقار كبضا حد أي قارين وعمر بن الخطاب لقصوا قرأين يلي رضي الله عنه وارضاه تعلموا الفرائض فإنها من دينكم علمك فرائض كبرت ويوا قيب وين ودينتينا كمد أيلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه cilmiga faraa'idku ee dhaxalku waa cilmi tawfiiqa sidaynu hore u soo sheegnay ilaahay baa qaybiyey ilaahay baa u gooyey qof walba waa tawqiifi waxa weeye meel loo dhaafo ma laha sidaa alla yidhi iyo siduu rasuulkiisu calayhi afdalu salaatu wasalaam yidhi meel loo dhaafayo ma jiro ra'yi qof xataa ra'yi nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ra'yigiisa qayb uu ka siiyey oo uga ogolaaday ilaahay ma jirto سبحانه وتعالى مد اللبات وفرض إلهي يلي نصيبا مفروضا سيدين هراء وصو شاكنا سيداس درتين قفكي إلهي وحقويي عد كدود سي كرتا ما جرتو قفكي كدود سينا سيدا آيضا بدن عينو شرحيان وحويي دنبي وين بفضل مد اللبات وحواجب كوه ما دام إلهي فرض يلي قفك الله دحليو إنو وصية كتغو oo yiraahdo dhaxalkayga waxaan rabaa sidii ilaahay yiri iyo nabigiisu in loo qaybiyo dadka wax dhaxlayana waxa waajib ku ah sidii alla yiri inuu qof waliba ku qanco waayo ilaahay baa gartay ilaahay baa qaybiyey ilaahay baa qof waliba xiriir ku la leeyahay qofkii dhintay qaraab ahaan intuu u jiro kor iyo hoosba ilaahay wuu og yahay laa yakhfa alayhi khafiya wax ka qarsooni ma jiraan ilaahay qof u dhaafay ma jiro cadaaladiisuna waa mid cid walba maxay ahayd koobtay weeye waxaynu arki doonaa in shaa allahu tacaala in diintaa shareecada islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina siiyey in aanay qofna dhaafin haweenkii xaaskii hooyadii walaashii walaalkii ubadkii ay sii dhaleen xataa sidaynu hore u sheegnay ilmaha uurka ku jira uu dhaxal leeyahay diinta islaamka dad badan oo muslimiinta ka mid ah iyo dad badan oo aan muslin ahayn ayaa waxay aaminsan yihiin in aayad ay dadku ka qaadeen xukunkeedii ka saareen jahliga darti gaalada iyo cadowga islaamkuna ay u isticmaalaan hub ay maxay ahayd kugula dagaalamaan diinta islaamka oo ah aayadda ah yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari mithlu xaddi luntayayn
ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qofka ninka ah siiyey laban laab qofka dumarka ah. aayaddaas oo aynu si qoto dheer qeybta saddexaad ugaga hadli doonno, waxaynu leenahay shareecada islaamku aayaddaasoo keliya kuma koobna. dhaxalka uu ilaahay qaybiyeyna mar kasta ma aha in uu qofku ninka i qaato laban laab qofka dumarka ah, balse waxaa jirta 15 xaaladood oo gabadhu ay qaadato ninka in ka badan. waxaa jirta 11 xaaladood oo gabadhu ay la mid tahay intay qaadanaysaa ninka. waxaa jira intaasoo xaaladood waynu aada u sharxi doonno haddii alla yidhaha, tusaalayaalna ka bixin doonno deriskeenna saddexaad ee casharkan. gabadhu ay qaadato qeyb ka mida dhaxalka, balse rag ka mid ah dadkii dhiigga la wadaagay qofkii la dhexlayay aanay waxba qaadanin haba yaraatee. intaasoo xaaladood oo aynu sharxi doonno iyo 4 goor oo keliya, 4 keliya allaala waxa kaysis dhici kara ee suuragal ah qof dhaxal leh uu ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaxalka siinayo. waxaa jira 4 xaaladood oo keliya oo gabadhu ay qaadato ninka nuski. sidaasaynu ku sii sharxi doonaa maxaa yahay deriska. ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga dhigo kuwii waxa wanaagsan dhegaysta ee maqla, wixii wanaagsan ay maqlaanna raaca ee ku dhaqma.